Smart Optical hoyga muraayadaha ee Hargeysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينكا كان مقعيس هو جوشوا كافالو waxa uu ciyaara koox ka tirsan horyaalada dalka Australia. Ninkan toddobaadkii aanu soo dhaafnay waxa uu cadaystay isagoo baraha bulshada soo hor fadhiistay in uu yahay laga roone khaniis qowmolood. Afka miyaan wax cuni dooninayo. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. dadka noocan dunida aad bay hadda ugu soo bateen saacadii ninkan waxa uu kaga gadisnaa kubadda cagta ragga ciyaaro waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay cadaystay inuu yahay khaniis faraxo naga baxdo salaamuna ninka kan waxa uu tibaaxaya in bari aan dhaweyn oo raganimada lafta ka qaatay asaahate uu intaba magaalada Dhuumaaleysi ku joogay hadda sawirkiisa uu cadaystay intaba waxa ka sii dar aniga iyo in badan oo idinkeeda ka midna soo gaarsiiyay warka kan ah taageerada waalid ee uu keenay bahda kubadda cagta ciyaartay inta uu caansan waa gaalada isa sii dhaantay waa sida loo hambalyeeyay waxaad moodaa in jannadii loogu bushaariyay weerisgii eriyada la isticmaalayo war qaar baa gabayo u tiriyay maasooyinka wadayaabaysa geesi baa tahay war waan wadana ku soo bal muxuu ku soconday waayahay ilaahay baan idinku dhaariyay bal Allah subhanahu wa ta'ala runbuu sheegay markuu lahaa gaalada isagoo ka waramaya inhum illa kal an'am bal hum adall wabil joog saacad way imsaday 3:12 saqbarkaasan muuqaalka kana sameynaya waxaan u sameynaya waxa weeyaan idinka dartiin waxana laga yaabaa muuqaalkan markuu ku soo gaadhay in daawato adigoo fresh ah oo iska raaxaysanaya saacad waxaad ogsoonataa in ugu yaraan 7 saacadood oo waqti ah soo galay dabcan ha wallahi sidoo jeedaan waxaan muujiyay tirada subscribers-ka kanaalka waxaan doonayaa insha Allah bidmillaahi kariim labada bilood ee sanadka ka hadhay inaan ku gaadhno 50,000 oo subscriber waa ay badan tahay hadii si loo eego saacad aniga dadaal ugu yaran ma idinay garab gala oo kiina hadda ay ugu horeysa kanaalka waxa ilaabin aad subscribe taabato intiina kala iyo adiga laftaaduba si share gareeya muuqaalkan kuna share gareeya balaha bulshada sida Facebook iyo WhatsApp aad bad mahadsantiin inuu celiya muuqaalkeeni صورك كانت أركيسان واحد لجوء سوق الريفريمها وصود درين قارب بدن وكمدة عيارتيدو كبدأ عقد كوجو عنصن يصيدوا كل كوحه وجوا وين فريمها كون واحد كسوق عادن دونا لبا فريم واحد صود درين عيارتي فريمتا كان كوحه كبدأ عقد وجوا وين أيابان إنك كانوا درتي لما أنتوا توهم باليريان هذين كهرين عيارتي جوا شرير بيكي وأنك هو عيارك واحد $1 شرير بيكي إنك كان يستقوهم باليري وحاو كويري بلا أيام بالي ورب أسقط كسر وحوليها خنيسة وتميسي ويا مان هلمي وكليها شرفتك وقول كل ملها شخصيا أساها توحن كوجم هالنقيات طلابات تروقاتي وأنا هلا يبي وسوق رقفكم من الدرك يدوم عدين تنلاقي وحوليها عالم كوكبت عكتوات بودم بيام حارنا حاوسي إن خلاص صعد لصبيه سبحان الله عن بالكوحدة نيدين كوحكسية كوحدة وكوحدة أرسنال بل waxay qorteen oo eegdo aad baad u mahadsantahay waxaanad ku mahadsantahay awoodaad iyo geesinimada aad la timid waxaad dhiirigeliyay hormuud u tahay malaayiin qof dunida kubadda cagtuna aad bay maanta u wanaagsan tahay sababtan adiga leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa soo hambaliyay boogaadeen waxa u dhacayaan waxa ninna intuu ka tagi naagna aan gaarin iyadoo loogu hambaliyay in البعض ريال يقطع صومالي واحد ترى هذا واحد قرصة تاويك وقرصة أرنت تانينا هفول حما طاها توحي الله سبحانه وتعالى قوم لنكو هلاقي هساها توح قرصون ما هبرها برشدين استعمالي إنه شخصيات كيقو عن سنة باستا وسوبو سكرينية فريما سنة واحد كيمان ينبيتشك يقول الله يكستا يبلوريس كبضنا ملايين تقوفي كوحدنايا سيدا دراديد وحانو طبقا إنما هذه الصوماليات أهيد سحرة ودير باليسك كدوة هدي أرنتان أينا نمانتا كهذا ورنجينا دمبر سنة سابدار سبق بكوكو شايه إما كبوي تيراني واحد أركضون ملايين صومالي oo noocaas ah hadaan ku noqdo fariintii kooxda Arsenal oo dartay ninka kan ay ku bogaadeen isii sababta aan sida gaarka ugu calaamadeen kooxaha kale uga doortay waxa weeyaan waxaad ogsoontiin ciyaartooyga loo yaqaan Mes'ud Ozil ee u dhashay dalka Turkiga saacada dhalashada dalka Jarmalku inuu kooxdan ciyaartooy kamid ahaan jiray ahaatee xiriirkii u dhaxeeyay isaga iyo kooxdan waxa uu aad u xumaaday markii Mes'ud oo ciyaartooy Islaami uu si
cad u dhaleelay dowladda dalka China oo cadaadin iyo ciqaab aad u baaxad weyn ku haysa muslimiinta laga tirada badan yahay ee goorka waagaas kooxda Arsenal waxay iska bariyeeshay weeraha ka soo yeeray Mesut Ozil iyadoo tilmaantay inay yihiin aragti shakhsiyadeed oo isaga u gaar ah maalintu eriyada ku hadlay laga soo bilaabana Arsenal waxa uu galay bench ilaa aakhirkii la iibiyay Mesut Ozil maxaa lagu dhaleelay Ozil waxa lagu dhaleelay in uu difaacay malaayiin muslimiin iyo goor ah oo dowladda China awood badan leeyahay cadaadinaysay caga juglina ku haysay in badan oo kamidana ay xabsi aad u adag dhex dhigtay dadweynuhu fiirsanay falalka arxan darrada ee dowladda China ku haysay muslimiinta tirada badan leh hase ahaatee indhaha ayaa iska qabteen iyagoo ka raacday danahooda gaarka ah markii Mesut Ozil afka uu furtayna iska daacid kale kooxdu ciyaaray ay cadaawadu muujisay taa bedelkeeda kooxaha kalena waa la miduna Arsenal maanta waxa ay taageero buuxda u tahay ereyada aadka u waaweyn ay ku taageeraysa kuna bogaadinaysay waxa akhasta ay sheegtay in dabada laga maro hadda isleedahay taageerida khaniisnimadu waxay ku kooban tahay ciyaartooyda kubadda cagta iyo kooxaha oo ciyaaraan taasi waa qalad baraha bulshada kuwa ugu waaweyn waxaa ka mamnuuca inaad erey qaldan ka tiraahdo ama aad ka sheegto khaniisiinta iyo afaarahooda tusaale ciyaartooyga magaciisa la yiraahdo Eldor Shomurodov waa ciyaartooy muslim waxaanu dhashay dalka Uzbekistan waxaanu ciyaaray kooxda caanka ah AS Roma ee ka dhisan caasimadda dalka Talyaaniga ee Rome ciyaartooygan islaamka isagoo ka falcelinay ninkii khaniisnimada sheegtay intuu ribale u galay ayaa uu ku soo qoray bartiisa Instagram-ka weerahan anigu waxaan ahay ciyaartooy ciyaar kubadda cagta waxaan aad uga soo horjeedaa falka kan ah ciyaartooygan islaamka waxa uu leeyahay bal waxaad malaysataa inay ubadkaagu kubadda la ciyaarayaan khaniisiin bal waa runtii malaysa ubadkaaga waxaad ku sii dhaxdaysaa waxaan qowmuluudka ee akhasta maxaad ka filanaysaa dhaqankooda dabcan way sareynayaan bari ka maalin iyaguna waxay noqonayaan gay iyo wax lagu baay Eldor Shomurodov hadalkiisii wataana waxa uu leeyahay balaayeedan ku dhacday maya war arrinkaas ka daaya buuri maxay dadku uga soo qaadayaan arrinkan khaniisnimada arrin dabiici ah sida dabiiciga ah waxa weeyaan in raggu dumarka u hamoodaan dumarkuna ragga u hamoodaan hadalkiisii waxa uu ku soo gabagabay astaghfirullah ilaahu noo dambi dhaaf hadda jeer waxaad aragtay in reer galbeed ku dhaleeceeyaan Afrika iyo wadamada islaamka in xorriyatul qowlka aad ugu liitaan waa su'aal ma u malinaysa ereyada uu ku hadlay Eldor Shomurodov in loo tixgeliyo xorriyatul qowl maya xaasha akoonkii ku lahaa bartiisa Instagram-ka uu ku soo qoray ereyadan gabi ahaanba waa la banaaday arrinkan doonayna kugu baraarujiyo kubadda cagtu waa ciyaarta loogu daawashada badan yahay caalamka sida daraadeed khaniisiintu waxa ay bartilmaameed rasmi ah ka dhigteen ciyaaraha oo ugu horeysa kubadda cagtu si ay u normalize karayaan ama ay aad uga dhigaan dadka dhaqankan aadka u liitay la shiriimaadeen intiina kubadda cagta daawataana waxaad aragteen horyaalka Ingiriiska horyaalka ugu xiisaha badan looguna daawashada badan yahay caalamka in marar badan lagu buunbuuniyo laguna xayisiyo khaniisiinta iyadoo lagu taageerayo heer kabtanada ay xidhan yihiin ciyaartooyda hogaaminaysa kooxuhu ay gabi ahaanba ka samaysan yihiin calanka khaniisiinta ee loo yaqaan rainbow-ga ama bajeegaanta intaas kuma komne waqti aymu waxaad arkaysaa 20 kooxood ka ciyaar horyaalka Ingiriiskuba inay profilada ay ku leeyihiin baraha bulshada dhammaantood soo saaranayaan calanka khaniisiinta horyaalka kaba daranba horyaalka Ingiriiska aad ka u muhiimsan khaniisiintu waa horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga walaalahay kan daawanay qaar badan oo kamid aniga daalay raaci doona oo oran doona war dhaqankan aadka u liita maxaad ka sheegay hadii inagu aynu Soomaaliyeed waynu ka nabad qabnay ilaahay oo niba waxba oginahay cadaabin waxaan ku sheegay adigoo waxba isku hawlin khaniisiinta Soomaaliyeed qurbaha ku nool ee afkooda ka cadeystay inay khaniisiin qaar badan yiraahdeen ba wana la qabayaga oo raga dalka gudihiisa xabsiyada ku yaala ay ku xiran yihiin boqolaal qof oo inala diiray in la dhiiga hadana qowmulooda afar nin oo isqaba nin la afartan baa ana qaba sidinaagii afartan baa ana qaba xaasas qowmuluud ah sheekha hadalkiisa si wata waxa uu sheegay inay ka dhacday magaalada Hargeysa qiso aan hore looga arag oo ah qisadii lagu halaagay qoomkii Nabi Luud ficilkii qowmuluud ayaa Hargeysa ka jira oo inaga maqlinay maxkamadaha qaarday inay xukumeen qaarkood oo 10 sano ay ku xukumeen meel ay ka dhowdaan ka tusaya dhowr bilood kol kanaalkeena waxaan ku soo upload gareeyay video aan kaga warramay khaniisiinta videogaas oo daarana bilowgoodii goorta soo awoodeysteen iyo hadda awoodoodu inta ay leegtahay muuqaalka kaasa luqadda Ingiriiska kuma tabin Carabina kuma tabin Sawaaxilina kuma tabin afkeen hooyo ayaan ku tabiyay comment section kiisa hadaad gasho waxaad ku arkaysaa dad Soomaaliyeed oo af Soomaali qoraya oo difaacaya khaniisiinta kuwa kalena waaba cadeysteen inay khaniisiin yihiin anigoo doonayay inaan dadka ku baraarujiyo inay dadkan inala nool yihiin ayaan soo biingariyay commentiskoodii laakiin maxay kaaga taala mar dhaweed anigoo diyaarinaya muuqaalkeena kana ayaan isiri eeg
mise waa bay delete gareeyeen muuqaalka hore linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa comment sectionka waxaanu noqon doonaa commentiga ugu sareeya hadal iyo dhamaan cudurku waa uu jira hadii run la doonayo muuqaalka kana la sii shargariyo si bulshadu ugu baraarugto balaayadan fooday nagu soo haysta in badan oo dadkeeni kamidana dabcan saameysayba أنا إلا بينات كلامك كوسو بيرتاد جو سبسكرايب تابني كمبلل كنا أتفرط سيو كوسو قرا موقال ولا بمركن وسيدا وسوق لينا